بسم الله الرحمن الرحيم قلب wanaagsan khiyaarta inala socotay meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin iyo taxliilin kale oo kamida wararka ugu waaweyn ee gobolka bariga dhexe xilligan waa 4 July sanadka 2026 waxa uu si toos ah idinkaga imaanaya faaqidadan qodobada aad daawo doontaana qeybaha ka mid noqon doona waxa kamida maanta dawlado fara badan ayaa ka qayb galay aaska loo sameeyo hogaamiyihii geeriyooday ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei dawladaha ka qayb galaya waxa kamid ah inta badan dalalka qaliijka iyadoo mid kasta loo diray fariin la yaab leh oo xasaasi ah inta ay ka qayb galayeen munaasabada aaska ayadaha quraanka kariimka ah ayaa loo isticmaalay sida fariin diblomaasiyadeed oo dawlad kasta ku socotay qodobada kale oo aan idin hayo waxa kamid ah khiyaarta ay nala socotay hay'adda Mossad ee Israel ayaa ku gacan saartay gool dhalanteeda oo doonaya inuu qaato ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu waxana ay diideen in ay saxiixaan wax aan suuragal ahayn oo la xiriira dagaalkii lagu qaaday nuclear-ka wadanka Iran muxuu ku salaysan yahay khilaafka u dhaxeeya nidaamka Israel iyo dawladda Turkiga oo hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan dood culus ayaa hadda miiska saaran oo dhinacyadu ay si weyn u lafagurayaan barnaamijka ayaan ku eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale intaan barnaamijka joogo qaada dhigi doonaa dawladda Ruushku waxa ay markii ugu horeysay furata afka iyadoo tiri nuclear-ka sida loo isticmaalo oo kale waa dawladda Iran in ay marinka Hormuz u isticmaasha tan oo noqonaysa fariin aad u adag oo dawladda Washington taabanaysa Iran ayaa digniin u dirtay wadamada Yurub qaarkood kadib tallaabo ay isku dayeen inay qaadaan oo saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah dawladaha waaweyn Trumpna waxa uu yiri muddo isbuuc ah ayaan siinay dawladda Iran si ay u aastaan Ali Khamenei haddii kale waxa ku dhici lahaaba waxyaabo la yaab leh haddii ay isku dayi lahaayeen in ay inna daba maraan qodobadaas ayaan galabta si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijka khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo dunida ka joogtaan kumanyaal ayaa maanta ka qayb galaya aaska loo sameeyo hogaamiyaha wadanka Iran ee geeriyooday Ayatollah Ali Khamenei waxana aaskiisa ka qayb galaya madax kala duwan oo ka soconaya caalamka fariin ayaa loo isticmaalay ayadaha quraanka kariimka ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah waxana dawlad kasta markay aaska tacsida bixinayeen ay dareemayeen in cajaladaha quraanka kariimka ee goobta ka baxayay la saaraya ayada loogu talagalay oo ka turjumaya sida wadankaasi xiriirka saaxiibtinimo iyo kan siyaasadeed oo ula leeyahay wadanka Iran dawladaha Saudi Arabia dawladda Taliban ee Pakistan dawladda Turkiga dawladda la yiraahdo Lebanon dawladda Qatar iyo kuwa kale oo badan ayaa ka qayb galaya aaskan waxana mid kasta la shiday ayad quraana oo ka turjumaysay halka xiriirka wadankaasi kan kale oo la leeyahay oo kale ay ka dhigan tahay tusaale oo kale dawladda Lebanon ee taagta yar balse Mareykanka iyo reer galbeedka la socota Joseph Aoun oo hogaamiye markii ay wafuudooda halkaas yimaanayeen waxa loo diray ayad quraana oo u dhigmaysa dadka in ay fuliyaan wacadka Alle oo ay si fiican uga qayb galaan dagaalka dhinaca ururka Hezbollah markii ay tacsida bixinayeen dhankooda waxa loo shiday ayada ka waramayay in la adkaado la sugnaado isla markaana kuwa Ilaahay dartii u dagaalama ay noqonayaan kuwa guushu ay raacday ururada Hezbollah iyo Hamas ayaa kamid ahaa iyo waliba ururka Islamic Jihad kuwa ayadahaasi oo kala loo shiday Saudi Arabia Qatar iyo Pakistan iyo wadanka Turkiga ayaa sidoo kale ayadahaasi kuwa u dhigma maanta loo shiday Iran waxa ay muujisay karti adag iyo waliba aqoon fogaashiye dhinaca diinta ah sida dadka telefishinada qaar wax ka taxliilinaya ay tilmaamayaan sida telefishinka Al-Arabiya ee laga leeyahay wadanka boqortooyada Sacuudiga ee aadka ula loolama kan kale ee Qatar ee Al Jazeera la yiraahdo dhinaca kale haddii aan eego isla wararka aaska la xiriira
maanta kumanyaal ayaa ka qayb galaya aaskaasi iyadoo dad fara badan ay muujinayaan kaalinta ay ka qaadanayaan sagootinta hogaamiyaha wadanka Iran Ayatullahi Ali Khamenei. kumanyaal qof oo reer Iran ah ayaa sabtidan isugu soo baxay masallaha Imam Khomeini ee magaalada Tehran si ay uga qayb galaan munaasabada rasmiga ah ee sagootinta hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei. ka qaybgalayaashu waxay carabka ku adkeeyeen in midnimada iyo isku duubnida shacabka Iran ay tahay hubka ugu weyn ee looga hortagi karayo waxa ay ku tilmaameen qorshayaasha Mareykanka iyo nidaamka Israel. mid ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabada oo la yiraahdo Maxamed Naadiri ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israel ay la yaabeen sida shacabka Iran ay uga qayb galeen oo garab istaageen xilligan adag dowladooda. waxaanu ku fashilin doonaa qorshayaasha cadawga inagoo ilaalinayna midnimadeena iyo wadajirkeena ayuu yiri. Naadiri waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka Iran ay aaminsan yihiin in dhiigga Khamenei uu noqon doono baa la yiri mid isku hayn leh oo aan noqon mid qasaaray. waa sida uu yiri waan sii wadi doonaa jidkii uu nagu hogaamiyay mana ka talaasuli doona mabda ayaga halgankeena waa sii socon doonaa ilaa kuwa ka dambeeya dilkiisa lala xisaabtamo ayuu hadalkiisa yiri. waxa uu tilmaamay in isku duubnida maanta jirta dalku ay tahay natiijada dagaalkii uu Khamenei sameeyay iyo dadaalkiisiiba muddadii dheerayd ee dalkan uu hogaaminayay. Iran waxa ay gaartay buu yiri awood weyn oo la isku halayn karo. dhankiisa Maxamed Naasiri Nasab oo 65 jir ah ayaa uga mahad celiyay Khamenei hogaamintii uu dalka soo waday muddo ku dhow 35 sanadood. waxa uu sheegay in Iran ay gaartay heer awood leh inkasta oo ay wajahdo cadaadis xoogan oo ka yimi Mareykanka iyo Israel. waxaanu aragnaa guul weyn ugu dambeyntii Washington iyo Tel Aviv ku qasabtay inay adeegsadaan dhexdhexaadiyaal si loo gaaro xabad joojin ayuu yiri. waxaan dunida tusnay adkaysi iyo waliba adeeg. mid kale oo shacabka reer Iran oo fagaaraha ka hadlay ayaa sidaas yiri. ka qaybgalaha kale ee munaasabada ee lagu magacaabo Mir Maxamed Azadi ayaa sheegay in isu soo baxa ballaaran uu yahay fariin loo dirayo caalamka oo muujinaysa sida shacabka Iran ay u midaysan yihiin. waxaan sii ahaan doonaa kuwa ka xoog badan sidii hore waxaan ilaalin doonaa wadajirkeena iyo qiyamkeena ayuu yiri. jimcihii ayaa si rasmi ah Tehran waxa uga bilowday toddobaadkii loo asteeyay barordiiqda iyo aaska Ali Khamenei iyadoo munaasabada lagu qabtay magaalooyin kala duwan oo ay ku jiraan Iran iyo sidoo kale wadanka Iran. munaasabada Iran ayaa la qorsheynayaa meydka Khamenei in lagu aaso 9 Luulyo gudaha xaramka ama halka loo yaqaano Imam Rida ee magaalada Mashhad ee waqooyi bari dalka Iran. sida lagu sheegay warbixinta Khamenei ayaa la dilay warar Israel iyo Mareykanku ay qaadeen intii lagu guda jiray dagaalkii bilowday 28 Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirno, taas oo muujinaysa in dowladda Mareykanka iyo nidaamka Israel ay wali dareemayaan cadaadis xoog leh oo ka imaanaya dhinaca dowladda Iran oo dowladda Iran aysan noqon in aysan isdhiibin ilaa iyo hadda xitaa haddii madaxdeedii waaweyneed ee la dilay waliba labadii raac ee isku xigay ee talada siyaasadda hoggaanka iyo militariga. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo maanta la ashqaraaray dunida waxyaabaha ka soconaya gaar ahaan aaska loo sameeyay ama loo sameynaya Ayatullahi Ali Khamenei waxa uu leeyahay Iran waa isdhiibaysaa waxaynu siinay toddobaad ay ku aastaan hoggaanka aynu ka qaarajinay sidaa daraadeed geediga nabadda ayaa lagu dhow yahay. waxa uu doonayaa kaalin inuu ku yeesho saameynta wararka waaweyn ee adduunka iyo sida Iran ay u jahaynayso maanta caalamka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay si weyn u doonayso inay heshiis la gaarto Mareykanka isagoo xuseen maamulka Washington uu siiyay Tehran muddo toddobaad ah sabab la xiriira munaasabadaha aaska hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei. Trump ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu xusay sanad guurada 250aad
madax banaanida ee yagleelida dowladda Mareykanka oo lagu qabtay gobol ku yaala wadankaasi halkaasi oo uu kaga hadlay arrimaha wadanka Iran iyo xaaladda bariga dhexe waxaan siinay toddobaad ayuu ku yiri hadalkiisa Trump waxa uu sheegay in ay doonayso Iran inay dib u soo laabato miiska wada xaajoodka waxaana uu yiri waxaan siinay toddobaad sababtoo ah waxa socday munaasabada aaska madaxweynaha Mareykanku waxa uu sidoo kale ku celiyay sheegashadiisii ahayd in Mareykanka uu si weyn u weeqay awoodda Iran isagoo ku andacooday in dalkaasi uu hadda si aada u doonayo heshiis inuu la galo Mareykanka aaska Khamenei ayaa maanta looga dabaaldegaya adduunka waxaana ka qayb galaya munaasabadiisa barordiiqda ah dad aad u fara badan oo ka qayb qaadanaya shicibka wadanka Iran ma ilmeynayaan laakiin waxa ay ruuxayaan calanka wadankooda waxa ay leeyihiin waxa uu nagaarsiiyay isku filnaan xagga awoodda ciidamada tiknoolajiyadda iyo waliba ilbaxnimada dowladnimada ah waana ninka sababta u ahaa in ilaalada kacaanku ay noqdaan kuwa iska caabiyay dhinacyada weerarka ay nagu soo qaaday waa Ali Khamenei ninka ay sidaasi ugu dabaaldegayaan sirdoonka Israa'iil ee Mossadna waxa ay ku gacan sayreen rabitaan ra'iisul wasaaraha nidaamka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku doonayay in lagu saxiixo malafyo uu doonayay in arrimaha nuclear-ka wadanka Iran la baabi'iyay oo isaga hogaamintiisa lagu dhameystiray waxa uu doonayay dhibco siyaasadeed iyo kaarar kale inuu qaato hasaatee taasi sirdoonku waxay yiraahdeen lagama yeelayo wargeyska Israa'iiliga ah ee caanka ah ee Dacood Ahronot ayaa daabacay warbixin ballaaran oo lagu sheegay in hay'adaha sirdoonka Israa'iil ay diideen cadaadis uga yimi xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo lagu doonayay inay saxiixaan qiimeyn rasmi ah oo cadeynaysa in gabi ahaanba la burburiyay barnaamijka nuclear-ka ah ee dowladda Iran sida wargeyska uu sheegay xafiiska Netanyahu waxa uu isku dayay in uu helo hay'adaha ammaanka sirdoonka iyo militariga warqad rasmi ah oo taageeraysa hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo la sheegay in duqeymihii Mareykanku ay cardaadiqada ka dhigeen nuclear-ka wadankaasi xiisadda ka dhalatay gudaha sirdoonku ayaa iminka u muuqatay inay aad u kulushahay tanina waa wajigabaxa uu hadda qaadanaya ra'iisul wasaaraha nidaamka gacan ku samayska ah warbixintu waxay sheegaysaa in subaxnimadii 25 Juun 2025 maalmo kadib markii uu dhamaaday dagaalkii 12 maalmood ee socday ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran uu ka dhacay mid ka mid ah xafiisyada sirdoonka Israa'iil dood aad u kulul iyo waliba qaylo aad u xoogan mas'uul sare oo sirdoonka ayaa sheegay inuu si cad ugu gacan sayrayo codsiga la doonayo in lagu saxiixo warqadda waxa uu leeyahay ma saxiixi karno warqaddan haddii runta mar uun bannaanka timaado innaga ayaa mas'uuliyadda qaadi doona Netanyahu iyo Trump waxay ku faaneen guulo aan xitaa ilmo yar rumaysan karin in la gaaray xogta aan hayno ma cadaynayso in barnaamijka nuclear-ka Iran la cirib tiray waxaa intaas ku daray in hay'adaha sirdoonku ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan xirfadooda iyo anshaxa shaqada isla markaana aysan aqbali karin in lagu qorabo yiri warbixin ka fog xaqiiqada waxa hadda bannaanka yaala dagaalka 12 maalmood intii u dhaxaysay 13 ilaa 14 Juun 2025 Israa'iil ayaa weerartay iyadoo Mareykanka taageero ka heshay gudaha nidaamka Iran weerarkaasi ay ugu magac dareen libaaxa soo kacaya kaasi oo lagu bartilmaameedsada xarumo military oo dowladda Iran ay leedahay Iranna waxay arrintaasi uga jawaabtay weerar kulul oo aad u xoogan oo ka imaanaya dhinaca ilaalada kacaanka oo lagu magac daray al-wa'd as-sadiq al-thalatha ama ballantii dhabta ahayd ee saddexaad taasoo ujeedadoodu tahay in Israa'iil iyo Mareykankaba ay la kulmeen duqeyntii ugu cuslayd dowladda Ruushku waxa ay ku dhawaaqday maanta hadal aysan jeclaysan Israa'iil iyo waliba dowladda Mareykanka ee uu hogaamiyo Trump Dmitry Medvedev oo ah ninka sida weyn ay saaxiibka u yihiin hogaamiyaha wadanka Ruushka Vladimir Putin soo qabtay madaxtinimada wadankaasi jagooyinka ugu sareeya sida madaxweynaha iyo xilalka ra'iisul wasaaraha haddana ku xigeenka guddiga amniga qaranka ee wadankaasi waxa uu leeyahay
iiraan xaq bay u leedahay inay sidii nuclearka u isticmaasho marinka hormus waa hadal aad u adag iyo qallafsanaan dhinaca ruushka ah oo ay leedahay ma aqbali doono dhinaca kaliya caalamka inuusan duleeyo gudoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka qaranka ruushka Dmitry Medvedev ayaa sheegay in ka qaybgalka uu ka qaybgalay munaasabada aaska hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei uu ku yimid amar toos ah oo ka soo baxay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin Medvedev ayaa u sheegay madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian inuu gaarsiiyo tacsida iyo fariinta madaxweynaha wadankiisa munaasabada aasku waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin sare wafuud caalami ah iyo marti kala duwan oo ka socota dalal caan ah kuwaas oo isugu yimi masallaha Imam Khomeini ee magaalada Tehran si ay uga qayb galaan sagootinta Khamenei Hormuz waa hub istiraatiiji ah ayuu hadalkiisa ku yiri Medvedev ayaa sheegay inuu muujinayo awoodda kadib tallaabooyinka ay sameeyeen isu socodka maraakiibta marinka Hormuz waxa uu sheegay in Hormuz ay Iran u yahay hub muhiim ah oo aan ka yarayn hubka nuclearka maadaama uu yahay marin ay maraan qayb kamid ah dhoofka shidaalka ee adduunka sidoo kale waxa uu tilmaamay in marin biyoodka Baabul Mandab uu isna leeyahay munaasabad istiraatiiji ah isagoo sheegay in haddii halkaasi ay dhibaato ka dhacdo ay suuragal tahay in gabi ahaanba uu istaaga shidaalka adduunka marinada iyo goobaha uu maro ruushku waxa uu sidoo kale ka hadlay arinta wada hadalka nuclearka ee dowladda Iran iyo meesha ay hadda wax taagan yihiin Medvedev waxa uu sheegay in ruushka uu hore u soo jeediyo xalal nabadeed oo lagu xallin karo muranka ku saabsan barnaamijka nuclearka ee Iran waxa uu intaas ku daray in uu rajaynayo inay guuleystaan wada xaajoodka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran hase yeeshee uu aaminsan yahay in heshiiska madambeysa oo labada dhinac ay gaaraan uu noqon karo mid aad u adag oo xaaladdu aanay sahlanayn soo jeedin ku saabsan dalalka cunaqabataynta saaray Iran ayuu sidoo kale kulankani daboolka uga qaaday Medvedev waxa uu yiri fikrada lagu dhisayo madal ku midaysan dalalka saaray baa la cunaqabataynta caalamiga Iran sida uu sheegay ruushka Iran iyo Shiinaha iyo dalal kale ee wajahaya cunaqabataynta waa inay iska kaashadaan yareynta saameynta wadamadaasi ay hayaan xiriirka ruushka iyo dowladda Iran ayaa cirka isku shareeray dhaleecayn ku saabsan weerarada Iran ayuu maanta ka jeediyay munaasabada tacsida hogaamiyahaasi ruushka magaca meeqaamka iyo waliba maamuuska xileedka haya isagoo sii hadlayay dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Iran Medvedev waxa uu sheegay in dhimashada dad badan oo rayida iyo mas'uuliyiinta ka dhalata weerarka Mareykanka aysan sharaf ahayn cid kasta oo go'aamisa fulinta duqeymahaasi hadallada Medvedev waxay muujinayaan taageerada joogtada ah ee ruushka uu hayo Iran xilli ay wajahayaan wadankaasi cadaadis aad u xoogan oo ku socda dowlado waaweyn oo caalamka ah dhinaca kale dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa digniin u dirtay qaar kamid ah wadamada galbeedka sida wadanka Britain iyo sidoo kale dalka Faransiiska waxaana ay u sheegeen cawaaqibka ficilada ay qaadayaan ka dhasha in ay dusha saaran doonaan dowladda Iranna aysan ahayn mid loo cagajugleeyo dowladda Iran ayaa digniin adag u dirtay dowladda boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo Faransiiska kadib markii labada dal ay shaaciyeen inay diyaar u yihiin samaynta ciidamo caalami ah oo ilaaliya isu socodka maraakiibta marinbiyoodka Hormuz waxay ku tilmaantay dowladda Iran in arintaasi ay tahay daandaansi aan geed loogu soo gaban ku-xigeenka wasiirka amuraha dibadda Iran ayaa sheegay in amniga marinbiyoodka Hormuz uu yahay mas'uuliyadda wadamadan ku teesan gacankan isla markaana faragelin kasta oo ciidan oo dibadda ka timaada ay noqon karaysa mid aad u culus ciddii arintaasi ka dambeysana ay qaadanaysa mas'uuliyadeeda waa uu hadlay qoraal uu ku daabacay barta X ee Twitter-ka hore loo oran jiray waxana uu ku leeyahay marinbiyoodka Hormuz ma aha goob ay quwadaha ka baxsan gobolku ay ku soo bandhigaan ciidamadooda Iran oo ah dal mas'uul ka ah sugidda amniga marinbiyoodkan ayaa iska leh waxayna ka digaysaa Iran tallaabo kasta oo military oo arintan taabanayso oo xasaasi ah Britishka iyo waliba Faransiisku waxa ay qorsheynayaan ciidan wada jira digniinta Iran ayaa timi kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
iyo ra'iisul wasaaraha Britain ay jimcihii soo saareen bayaan wada jira. Labada hogaamiye ayaa sheegay in Faransiiska iyo Britain ay diyaar u yihiin inay hogaamiyaan qayb ahaan ciidan caalami ah oo dhowr dal ka kooban, kuwaasi oo ilaalinaya xorriyadda maraakiibta. Waa goobtii Trump uu ku fashilmay intii dagaalkii weynaa uu ka soconayay gobolkaasi. waayahay qodob xasaasi ah ayaa jira maalmihii ugu dambeeyay intii la socotay warbaahinta caalamka iyo tabinadii barnaamijka Barrow Show. waxa aad u soo baxayay eedda iyo waliba xiisadda sii xuslaanaysa ee u dhaxaysa dowladda Turkiga iyo waliba nidaamka Israel Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo. haddaba aynu eegno maxay ku salaysan tahay eedan iyo waliba xiisadan cirka isku shareeraysa ee qubarada qaar ay saadaalinayaan in laga yaabo dagaal waqtigiisa u dheeraado in ay halkaasi ka dhashaan. xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Israel ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay muddo sanado ah iyadoo labada dhinac ay isdhaafsadeen hadallo adag iyo digniino siyaasadeed. inkastoo xiriir diblomaasiya uusan wali si buuxa u go'in, hadallada ka soo baxaya Ankara iyo Tel Aviv waxay muujinayaan kalsooni darro sii xoogaysanaysa. Erdogan iyo Fidan ayaa sare u qaaday dhaleecaynta nidaamka Israel ay ku hayaan. madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si joogto ah u cambaareeyay siyaasadda Israel, isagoo ku eedeeyay Netanyahu in uu mas'uul ka yahay dambiyada ka dhacaya magaalada Gaza. sidoo kale wasiirka amuraha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in Israel ay tahay dal qalqal gelinaya xasiloonida gobolka isla markaana dhibaato ku haya amniga caalamka. Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uusan ka baqayn iska horimaad haddii danihiisa qaranka ee gobolka ay waxyeello soo gaarto. Israel Turkiga waa Iiraanta cusub ayay ku tilmaameen, taas oo muujinaysa habhaabashada dagaal cusub oo mustaqbalka gobolkan ku soo fool leh. sida ay qorayaan warbaahinta Israel gaar ahaan wargeyska Diocad Ahronoth ee Israel ka soo baxa, waxaa gudaha nidaamka ka soo badanaya baa la yiri aragti sheegaysa in Turkiga uu noqon doono caqabad amni ee ugu weyn kadib markii awoodda Iran ay hoos u dhacdo. waa sida ay ku doodayaanbe waaba haddii Iran laga adkaado. warbixintu waxay sheegtay in qaar ka mid ah madaxda Israel ay rumaysan yihiin in Ankara ay doonayso inay dhisto awood sunni ah oo gobolka oo ka hor imaanaysa Israel, taas oo ay barbar dhigayaan awooddii hore ee Iran iyo doorkii ay banaysay. afar arrimood oo Israel ay ka walaacsan tahay ayaa hadda miiska soo fuulay. midda kore waa saameynta Turkiga uu ku leeyahay wadanka Syria. kadib siyaasadda Syria ee isbedeshay, Turkiga waxa uu xoojiyay joogitaanka military iyo siyaasadeed, isagoo taageero cusub siinaya soo celinta qaxootiga Syria, isla markaana uu sii wado dagaalka ka dhanka ah kooxaha Kurdiyiinta. Tel Aviv waxay ka cabsi qabtaa in saameynta Ankara ee Syria ay si toos ah ugu soo dhawaato xuduudaha nidaamkeeda. qodobka labaad ee arrintan taabanaya waa helitaanka diyaaradaha F-35 ee Mareykanku uu sameeyo ee dowladda Turkigu ay aadka u raadinayaan. Turkiga waxa uu aad ugu dadaalayaa inuu dib ugu biiro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee Lockheed Martin ee F-35 iyo waliba in uu hormariyo baa la yiri diyaaradihiisa dagaalka ah ee Kan. saraakiisha Israel waxay aaminsan yihiin in haddii Turkiga uu helo tiknoolajiyadan ay weeqi karayaan faa'iidada cirka ee Israel ay ku leedahay dagaalka. tan saddexaadna waa taageerada kooxaha wax iska caabinta gaar ahaan ururka Hamas. Israel waxay ku eedeynaysaa Ankara in ay tallaabadaasi ka shaqeynayso. kan afraadna waa mashruuca tamarta badda iyo waliba dhaqdhaqaaqa dowladda Turkidu ay sameynayaan iyo isballaarintooda gobolka bariga dhexe ee geeska Afrika. waxaa sidoo kale jira baa la yiri baaritaan ku saabsan mashruuca korontada iyo gaadiidka badda ee bariga Mediterranean-ka. Turkiga waxa uu diidan yahay in qaar ka mid ah heshiisyada ay Israel la leedahay Greega iyo Qobrus, isagoo ku dooday in ay dhaawacayaan xuquuqdiisa dibadda. Turkiga waxa uu ballaarinayaa saameyntiisa gobolka. waa doodaha ugu ballaaran ee hadda miiska saaran. warbixintu waxay sheegaysaa in dagaalka Ankara uu si weyn u kordhiyay saameynta gobolka tan iyo markii ay bilaabeen
dagaaladii dhacay 7 Oktoobar ee 2023 haddaba ma dhici karaya dagaal u dhaxeeya Israa'iil iyo dawladda Turkigu maxay arrintan ka sheegayaan qaar kamid ah warbaahinta inkasta oo hadallo siyaasadeed oo aad u kulul la isweydaarsaday haddana ma jiraan calaamado cad oo muujinaya in labada dhinac ay ku dhow yihiin dagaal toos ah waxaa jira dhowr arrimood oo yareynaya suurtagalnimada arrintan waa midda hore labada dhinac waxa ay wali leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed inkasta oo aad u liito Turkigu waxa uu xubin ka yahay ururka gaashaanbuurta NATO iyo waliba ururka waqooyiga Atlantiga ee dhinaca ganacsiga halka Israa'iil ay xiriir istiraatiiji ah la leedahay Mareykanka midda saddexaad waxa uu yahay dagaal toos ah waxa uu qatar gelinayaa xasiloonida gobolka oo dhan taas oo aan hadda quudaha waaweyn aysan si weyn u danaynayn si kastaba ahaatee waradu waxay rumaysan yihiin in tartanka istiraatiijiga ee u dhaxeeya Ankara iyo Tel Aviv ay sii xoogaysan karaan gaar ahaan arrimaha Syria iyo Mediterranean-kaba marka si guud loo eego kulanti suuban akhyaarta nala socotay ee qodobadii ugu waaweynaa ee warbaahinta diblomaasiyaddu ay si weyn u qaada dhigayeen xilligan qaybtan intaas ayaan ku hakinayaa warar kale ayaa noo soo socda ha ilmaamina inaad YouTube-ka subscribe saartaan oo mahadsantiin